saddex waqtiga ha isaga khasaarin. Ka fakarka wax shalayto kaa tegay, waayo shalayto dib u soo noqon mayso. Iyo sugidda waxaadan gacanta ku haynin, waayo garan maysid waqti aad helaysid. Dayidda inaad cid walba raali geliso, sababta ay tahay suurtagal noqon mayso, macquulna maba ahanba inaad cid walba raali geliso. Intaad isku dayaysa inaad qof walba raali geliso, naftaada raali geli. Ugu horreyn naftaada ka bilow. Soomaalida waxay tiraahdaa naftiisa wax taraatu kala ku dara. Marka naftaada ka bilow raali gelinta iyo inaad ayda kalsooni siisa ka bilow, kadib dadka u soo laab. Marnaba ha u ooyin qof qalbiga kaa dhaawacay. Keliya u dhoola cadee ku dheh waad mahadsan tahay. Sidaa fursadda iigu siisay inaan qof adiga kaa wanaagsan raadiyo. Ma jiro qalbi aan ka ahayn kan hooyada oo duruuf kasta iyo waqti kasta kuu soo jeed amaba diyaar kuu ah. Ilaa hooyooyinka noo xifti mar walba qalbiga hooyo waa albaab iska furan aan marnaba laga xiranayn xilligaa doonto aad iska gelayso. Laakiin qalbiyada dadka kale waxaa laga yaabaa markay danaha gaarka kaa leeyihiin inay qalbiga kuu furaan oo ku dhoola cadeeyaan oo ku soo jeetaan oo iftiin aad u qurux badan ku tusaan. Laakiin maalinkaad u soo baahato waxaa laga yaabaa albaabadaba in lagaa xirto. Ballan ha qaadin marka aad faraxsan tahay, waayo waxaa dhici karta inaad hilmaanto. Jawaab ha celinin marka aad xanaaqsan tahay, waayo waxaa dhici karta hadalla aan munaasab kuu ahayn inaad ku hadasho, ama hadallo badan oo aad qarsanaysay oo muddo badan dabooleysay oo sanduuqa gelgelinaysa inaad banaanka u soo saarto. Marka sidaas darteed markaad xanaaqsan tahay ha jawaab celinin. Aan ha gaarin marka aad murugaysan tahay, waayo waxaa dhici karta go'aankaas inuu noqdo mid aadan ka soo laaban oo aad hoosta ka xariiqato. Sababtoo tahay qofku markuu murugaysan yahay go'aanka uu gaaray kama fakaro. Haddii qof markuu dhaawacay aad fursad labaad siiso, waxay kaaga dhigan tahay adoo siiyey rasaastii uu mar labaad kugu dili lahaa, maadaama markii hore uu kula waayay dhibka uu kula rabay. Marka qof haddaad siinaysid fursad labaad, ha isdaadinin, is ururi, isku badnow. Maa la dhihi jiray has dhihin hebel waa dhibkii hore iyo wixii waa ka soo laabtay. Waxaa laga yaabaa dhaawicii shalay uu kuu geystay mid ka badan inuu kula rabo, balse adiga aadan ogeyn. Marka daacad ahow, laakiin daacad iska warqabta noqo. Ha ku waayin naftaada adigoo isku dayaya inaad ilaaliso qof aan danaynin adiga waayitaankaaga. Qofna naftaada ha ku khasbin, qofna yuusan isku kaa khasbin.